الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخواتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ودان إسكاله ووحكستو أو خيره أو نعمة أو ضيفة أو فائدة أن أدون كان كويسانو إنسيي وما بكم من نعمة فمن الله. وحن كلام مهدينا يا علماء معد كان بركيسان وهرمود كوية هاي فضيلة الشيخ الدكتور إلهي سبحانه وتعالى ذلك iyo nafciga iyo wanaaga ay umada u hayaan ka abaaliyo. inta kadib saaxiibkayga walaalkayga sheekhayga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Mursal ayaa si fiican oo tafatiran mowduuca uga hadlay. ilaahay asagana ajri xasanaad fara badan ka siiyo, annagana hanu anfaco. aamiin dhaha. بارك الله فيكم. أنا شيخ أو كلمة هي وحن جعلها إلا إلى تفاعله. سؤال عن دين ويديو هذه جوابتان ديار موتي إن شاء الله. هذيك الواد مشغول إنسان. أنا كنا ونسكت الدلمي وحلقيها بترير وكوبا هنا كفى إذا استام موضوع وشيخ كهلي. أنا كنا أود مرايو والحديث عن المرأة المسلمة. قبل مسلمة ده مركز لقى ورمايو ولا شيكينايو ولا تناولايو وح أيدا خصية. أما موضوع أيدا كسابسا كهذا الكاس أيدا لقى هذلايو هذا العادي ما أهن، هذا القف عادي لقى هذلايو ما أهن. وهذا اللي هذلايو مجتمع أوردن وشيخ ونوانا بجوجي مجتمع والله وقيبود قبل يويل أمرك يدمر سوء نقول كرا مرك اللي هذلايو دمر كإن اللي هذلايو بالشدة أوردن وحول نقنايا بالشدة هدي لبلا وقيبيو قيب كم إذا ودمر صمها ولما قيبته قبضا nimanka iyo gabdhaha waxa badan Soomaha gabdhaha mar walba. ilaahay idin barakeeyo. amiin dhaha. sida marka la fiiriyo oo aqlabiyada la fiiriyo waxa wax lagu qiimeeyo laba shay haday yihiin kan qiimiga badan ama kan badan ayaa loo aaneyn karaa wixii laga hadlaayo. marka bulshadu hadii ay tahay rag iyo dumar, dumarka badan mar walba. sidoo kale marka laga hadlaayo gabdhaha xataa aan hoos u soo degno aan dhahno maalan waa kala barobar haddana gabadhu ama gabdhuhu ama dumarku badh hadday yihiin badhka kalena ayagaa hagaajiya, ayagaa soo saara, ayagaa tarbiyeeya. soo maaha raggan adduunka wanaaga buuxiyey culimadu ay ugu horeeyaan madaxda yaa dhalay horta. markii horeba yaa dhalay way calooshooda ka soo baxeen gabdhihii. soo maaha hooyooyinkii waaye. haddana intay yaryaraayeen yaa soo tarbiyeeyey oo soo ilaaliyey oo qiyamkii soo baray oo heerkaa soo gaarsiiyey. haddana waa gabdhihii. soo maaha nimanka bannaankaasun bay ordayaan, irsaaqada ay raadinayaan inta badan. marka madraso siduu sheekha u sheegay jazakallahu khayran iyo waa meesha ugu horeysa ee lagu hagaajiyo, lagu soo saaro ragga. marka sinaba loogama maarmo. marka gabadha muslimadda marka ka hadlayso hadii xataa ay kala baro bartahay bulshada qaybteeda kalena ayada soo saartay. waa mashruuc dhan oo marka isku dheelatiran, waa warshad dhammaystiran oo loogu talagalay in ayada
markay iska bilowdo iyo waxa ayada ka soo baxa oo gacanteeda soo mara oo ay diyaarisay ay xambaaraan mashruuca ummadda iyo mustaqbalkeeda aakhiro iyo kan adduunyo. waxay gabadhu muhiim u tahay oo marka laga hadlayo warka ayada ku aadan uusan ahayn war caadi ah ama hadal fudud. gabadha hadday hagaagto bulshaduna way hagaagaysaa, haddii ay fasaadana walciyaadu billaah bulshadu way fasaadaysaa. saas ma ogtihiin? qiimigaas iyo sharaftaas ayaad leedihiin. yacni raggoo dhan hadday fasaadaan walciyaadu billaah mana dhacdee, waa laga yaabaa bulshadaas inay badbaado oo gabdhuhu ay u badbaadaan. laakiin hadday gabdhuhu fasaadaan oo ay doorkoodii iyo kaalintoodii ay gabaan, marka ayadaa bulshadaas fa calayhi assalaam. walidaalika waxaad ka garanaysaan gaaladu markay rabaan inay ku duulaan ama ay qabsadaan ama ay burburiyaan bulshada muslimka ah, xaggay ka bilaabaan? dumarka soo maaha? dumarkay ka bilaabaan. leanna waxay ogyihiin guriga hadduu fasaado, gabadhu ay fasaado, hooyadu ay fasaado, mujtamacaasi wax uu loo hambeeyey oo u haraayo ma jiro. siduu marka sheekha u sheegay jazaahu allahu khayran, qiimigaas ayaad leedihiin, sharaftaas ayaad leedihiin, karaamadaas ayuu ilaahay idin siiyey, waana nicmo weyn. horta inaad faantaan oo aad iska heshaan oo aad ismahadisaan ayaad xaq u leedihiin. yacni munaasabad iyo 2 iyo 3 maaha, munaasabaad aad u fara badan ayuu suubanuhu calayhi salaatu wasalaam si gooni ah ragga la hadlay oo idinka inaad ammaano tihiin oo uu idin jecel yahay kula hadlay raggii. istawsuu binnisaa'i khayran, maxfalka ugu weyn ee carafo ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga dhawaaqay marka ugu dambaysa. dhowr maroo hore way jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ragga waxaan idinkula dardaarmayaa khayr dumarka. marka dad la jecel yahay aad tihiin soo maaha? jaceylkaas marka waa nicmo, nicmadaasna waa la isweydiinayaa. weliba nicmooyinka say u kala waaweyn yihiin ayay su-aasheeduna u kala adag tahay. uma latus'alunna yowmaidin can innaciim. aniga markaan fiiriyey ilaahay subxaana wa tacaala wuuna jecel yahay annagoo dhan, rag iyo dumarba. muslimiinuu naga dhigay leene, aadna wuu noogu naxariisanayaa. laakiin nusuusta markaad fiiriso ragga iyo dumarka waxaad moodaa adinka in laydin jecel yahay. maxaa yeelay dhaha waxyaabo aad u jilicsan oo sahal ah oo fudud ayaa waxaa lagu xiray guushiinna aakhiro iyo midda adduunyo. axaadiista waad wada taqaanaan soo maaha? tusaale xayi aan soo qaato. adinka hadda dharaad xirantihiin soo maaha? aniisha cabdiraxmaanna dharaan xirannahay. aniga qamiiskaan aan xiranahay iyo koofiyaddan iyo funaanadda ka hoosaysa iyo waxaasoo dhan, xirashadeeda bimujaradi xirasho ajir ma ka helahay. marka laga eego inaan asturay cawradayda oo ilaahay uu faray laakiin idinka xijaabkan aad qabtiin oo aad gashan tihiin oo saa u quruxsan oo ilaahay subxaana wa tacaala idinku xifdiyey, karaamadiinna ku ilaaliyey, sharafta iyo qiimiga aad ku yeelateen, waxaad ku helaysaan ajir iyo janno. saa ma ogtihiin? waxaa laga yaabaa dad badan ama gabdho badan inaysan ogeenba. xijaabka aad qaadanayso waa cibaado, jannaad ku mudanaysaa. waa waxaad isku qurxinaysay, isku asturaysay, haddana janno aad ku galayso. intaad xiran tahay ajri xasanaadaa kuu socdo. waa karaamaadkii sheekha uu ka hadlayay iyo takriimkii. marka ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo. waxaad ogaan kartaan waan jeclahay inaad akhrisaan dumarka kuwa hore iyo kuwa hadda jooga, bulshooyinka iyo ummadaha kale meesha ay dhigeen.
mogtahay waxa carabtu waxay yiraahdaan wabididdiha tatabayanu al-ashyaa'u waxa marka waxa iska soo horjeeda ee didka isku ah marka la isbarbar dhigo ayaad ogaan kartaa waxa ay ku kala duwan yihiin maanta oo dhan haddii idinku akhriyo diinta islaamku waa idin karaamaysay meel fiican ay idin dhigtay wanaag bay idin siisay karaamo waa la fahmi karaa ilaa xad laakiin waxaasi waxay si fiican u caddaanayaan oo maqaamkiina iyo uu soo baxayo karaamadiina ummadaha kale kuwa tagay iyo kuwa hadda noolba say oo la dhaqmaan gabdhaha yurub hadda iyo maraykan soo iskuma sheegaan inay yihiin ummad hormartay oo xadaarad leh oo xuquuqul mar'a ilaa aakhirihi taqaariirta ayagu ay soo saaraan iyo riboodyada ay ka qoraan xaaladaha dumarka iyo gabdhaha markaad akhrisaan madaxa idin weynaanayo waxaa ka mid ah maalan oo ugu fudud gabadha 18 sano hadday gaarto guriga aabbaheed inay ku noolaato xaq uma lahan bannaanka loo saari ya 18 sano baynamaa islaamka dhinacaas markaa uga barbar dhigtid mar walbo nin ayaa mas'uul ka ah gabadha mar walba waa ilaa ay ka dhimanayso maalinta ay dhalatay laga soo bilaabo ilaa ay ka dhimanayso mar waa aabbihii soo maaha haddana waa ninkii haddii ninka uu dhinto ama ay kala tagaan ama ay guursan weyso waajibka wuxuu ku soo noqonayaa aabbihii iyo walaaladeeda hadhow markii ay weynaatana caruurtii ayuu waajibka saaran yahay meel ay bannaanka soo dhacaysa maba jirabo walidaalika waxaa ku badan walciyaadu billaah zinada iyo fasaadka liannahu gabadhii xataa waxay isaga bixiso fiiska jaamacadda ma heli karto waxay ku qasbanaanaysaa marka nin cadow ah oo aan ka naxaynin oo bahal ah inay gacanta u gasho wuxuu rabo ay u samayso walciyaadu billaah kadibna waxoogaagii fiiga iyo qarashkii jaamacadda ama iskuulka iska bixiso ya moogtaa waxaa markuu cibaado yahay oo qofka uu aaminsan yahay iimaan ahaan uu aaminsan yahay ayuu wax ku ool noqonayaa oo qofkii uu iltizaamayaa lianna wuxuu og yahay gabadhan xaas ha noqoto gabar uu dhal ha noqoto hooyo ha noqoto walaashiis ama habaryartiis ama eedadiis ha noqoto markii uu ixsaan u sameeyo ixsaankaas haba kala duwanaadee inuu waajib ku yahay oo uu ku helaayo janno ninkan gaalka ah laakiin si kastuu ilbax u yahay wuxuu ku xisaabtamayaa xisaab maadi ah maxaa iiga soo noqonaya gabadhan ajir iyo aakhiro iyo darajo iyo waxaas asaga xisaabkiisa kuma jirto marka ma laga gaari karo shariicada islaamka meel weyn ayaa idin dhigtay sharaf weyn ayaa idin siisay marka ugu horreysa waxaa idinka dhigtay muslimiin diinta islaamka qaatay dhinacaas waxaad ragga ayaad la mid tihiin yacni waxaas sheekh waa wax iska badahi ah waa wax la iska og yahay maxaa looga hadli waxaas waa la fahansan yahay gabadha muslimadda ah iyo ninka muslimka inay isku mid yihiin walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf soo maaha wixii waajibaad oo saaran wax la mid ah oo xuquuq ah ayay leeyihiin waa la isku leeyahay ragguna dumarkay ku leeyihiin dumarka raggay ku leeyihiin sheekh waxaas wax iska caadi oo la fahmi kara waaye maxaa waqtiga looga luminaysaa wax iska caadi ah oo la fahmi kara ma ahan sheekha wuu ishaaray balaaya idin soo gashay waayadan balaayo madow waxaa jiro oo hadda ka jira xaafadeenna iyo Nairobi waa laga yaabaa gabdhaha wanaagsanaa tihiin idinka inaydan ka warhaynine xafiisyaha loo furtayba consultation maxaa la dhahaa Cabdiraxmaan consultation luqadii maxaa lagu dhahaa sheekha moogtaa waa lawyer luqadii ingiriiska asaa ku fiican xafiisyo lagula talinayo gabdhaha ya iyo dumarka oo maxaa lagaga talini waxa ugu weyn waxa weeyaan
ragga iyo dumarka ayaa la iska horkeenayaa waa la isku dirayaa ya islaan ladan oo maasha Allah ah gurigeeda joogta ninkeeda uu fiican yahay baa la kaxayni waxa la geynaa xafiisyadaas mid kamid ah midda kale dumar gaala ah ma joogaan gabdho muslimaad ah joogo oo wali mutaqafaad ah xijaabkii xiran يعني markay hadlaysa xataa luqadda isticmaalaysa ay tahay xataa ilaa xad luqadda sharciga axaadiis ay soo daliishanaysaa aayaday soo daliishanaysaa waa aragnay annaga wax badan gabadhiyaa la fasaadinaa marka feministkii hadday sheekha uu sheegayo ama nisawiyada oo ujeeddadeedu ugu weyn ay tahay ragga iyo dumarka in la iska horkeeno gabdhaha lagu diro ragga ayaa waxaa lagu samaynayaa dib u habayn waa la islaaminayaa gabadhii marka macluumaadkii oo dhan ayaa laga qaadi ninkaaga muxuu yahay meeqa sanuu jiraa xaguu ka yimid meeqa cunuga idin joogto goorma lagu guursaday aniga xataa waa khaldami gaaray goorma isguursateen hadda dumarka admaan dhow timidaan shukaansanayay ya marka waa isalaanay marka waxay tiri goorma isguursanaa war waxaas wax ka jira maraan ku yiri goorma i guursataa dheh cidda wax guursanaysa waa aniga adiga waa lagu guursani kuwa badan oo hadda niqaab qaba meesha inay xanaaqsan yihiin laga yaabaa gabadha meesha lagu guursanay xataa ma joogto aabaheed ama walaalkeed ama weligeeda joogo marka idinka waa lidin guursani soo maaha waa isqabnaa iyo waa isguursanay iyo waa isfurnaa ka daran waa isfurne xagee wax ku furtay adiga waa lagu furee hadiiba lagu furo walciyaadu billaah way qoslayaan fiirish cabdiraxmaan mustalahaadkaas waa wax yar yar waaye xagga marka la tago marka macluumaadkii oo dhan ee guriga laga qaadi waxaasna waa dembi ma banaano nabigu uu diiday calayhi salaam asraarta guriga iska badaa naag ajnabi iyo nin ajnabi oo xafiis u furtay inay guriyaha burburiyaane hooyada iyo xigtada iyo waalidkaaga inaa u sheegto sax maaha soo saas maaha waxyaabo badan oo hadda guriyaha burburinaayo waxaa koow ka ah asraarta guriga bannaanka la geyni war guryahan saan u dhisan oo degan kulligooda ma wada faraxsano wax unbaa si ka ah adduunkaaba saas ah ya laqad khalaqna alinsaana fii kabad raaxadu waxay jirtaa aakhiro iyo janno haddii qashqashaad uu jirin tashwiish uu jirin farxad iyo reynreyn iyo wanaag lagu noolaan lahaa oo wax yar oo xataa aysan jirin jannada maba loo shaqaysanayo soo maaha yanno adduunkaaba lagu haystaa wixii markaasaa gabadhii ninkaa lagu soo diri waxaa la dhihi dabagal akawnkiisa meeqaa ku jirta ma fahante muxuu qabtaa nin islaameed ninkii islaameed oo shaqada ka yimid unbaa waxaa la dhihi adii horta meeqa akaawaa kuu furan ninkii uba isku naxiba uu boodi khaasatan soomaalida laftooda moogtay waa kala ilbaxsan yihiine haddii uu maalan ka soo jeedo northeastern qabaa'isha northeastern degta uu yahay aniga nin garna ahay maalan hadday xaaskayga weydiiso akawnka meeqa akawnkaa kuu furan waaba xanaaqayaaba akawnkayga maxaa kaa gala adiga meeqa lacaga kugu jirtaa ka daranba waxaa la rabaa marka gabadha iyo ninkeeda in lagu qoro oo 50-50 share ay kala yeeshaan waxaas waaba dulmiye ma lacagtayda 50-50 kala qoranaynaa oo weliba aniga mas-uuliyadda ay saaran tahay biilkii iyo kiradii iyo school feegii iyo wixii dhan inaan bixiyo ma ogoliyu dhahay sheekh nin ogol in la qasba maahane ma jiro balaayadana meeshay ka bilaabanaysaa marka gabadhii laga sugayay reerkii inay hagaajiso usradii qoyskii bulshadii ninkeeda laftiisa oo markii asagoo daalan uu yimaado asagoo murugaysan uu yimaado inta dejiso maskaxda u dejiso tartiib wixii ay ka dhagaysato xal ay siiso la rabay haddii iyadoo ku buuqayso bulshadii ma hagaagaysaa marka ma hagaagayso waa dagaal asagana wuxuu leeyahay gabadhaan iska celi xoolahaaga ay u soo dhigatay nimanka khaasatan waa bakhiiliin xoolahaaga ay u soo dhigatay naftaada ay u soo dhigatay iska celi meeshii la rabay marka xasilooni iyo sakiino iyo naxariis iyo kaalgacayl iyo isdhagaysi iyo isqadarin waxaaba ka bilaabanayaaba ninkan uu iska ilaalini mid arrintaas oo kale ay ku dhacday waan saaxiibanahay yaa ii yimid isagoo tala raba wuxuu igu dhahay sheekh waxaan gaaray heer markaan seexanayo hal il keliya aan xiraayo saasaan u seexanaa kula islaanta markay jikada iyo meelahaas aado
waxaas maxay tahay waa cabsi waanba ka baqaayo uu leeyahay hadday meelahaas aado ama ay budh soo wadataa toorrey soo wadataa cabsi marka gurigii hadduu saas yahay gabadhii ay saas noqoto gurigaas iyo bulshadaas iska badaa inay wax kale dhisto oo ay ummadda diyaarisee gurigaasaa burburi walidaalika hadda aharka iyo xadiiska sheekha uu sheegay ummukum khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaam uu cabsaday jibriil markuu arkay suuradiisa saxda uu ku arkay isagoo jaraynayo gariirayo uu yimid oo aad u cabsan wuxuu yidhi zammiluunii way dejisay kadib nebiga markuu soo miirsaday ayaa wuxuu dhahay laqad khashiitu calaa nafsi waa isu baqay hadalka ugu horraysay tidhi waxay tidhi kallaa laa yukhziika allaahu abadaa xabsidaas sheegaysa maxay tahay wax ka jiro ilaahay abuurta ma laha ilaahay maba ku hoojinaayaba markaasay waxay bilowday wanaaggiisa inay sheegto innaka latasilu alraxim wataxmilu alkal wataksibu almacduum watuciinu calaa nawaa'ib alxaq nin wanaagsanaa tahay oo deriska u roon danyarta u roon xigtadiisa u roon dadkoo dhan u roon wanaagga sameeya maba dhici kartaba ilaahay inuu ku hoojiyo cabsida ka bax waa tii ay markii dambe sheekha siduu noo sheegay ee u geysay ila adeerkeed warqata min nawfal saasaa la rabaa sidaas haddaad samaysaan marka derajadii ilaahay uu siiyey khadiija radia allahu canha isla derajadaas aad helaysaan ma dhahayno laakiin jiwaarkeedaad noqonaysaan waxay ku heshay jaceylka nebiga calayhi salatu wasalaam innii rusiqtu xubbaa jaceylka ilaahay bishaara waxaa loogu soo dhiibay jibriil janna loogu bishaareeyey bibeytin laa sakhaba fiihi walaa qasaba walaa nasab maxay ku heshay ninkeedii ayay dacwada iyo diinta garab ku siisay darajadaas sooma rabtaan darajadaas sooma rabtaan nimankiinna u gaargaara oo garab u noqda oo khayrka ku caawiya haddii ay ducaad yihiinna maba kusii jiraanba iyo culimo haddii kalena maadaama uu qayb ka yahay bulshadaas adinka laydinka rabo inaad islaaxisaan waa in islaaxa uu ka bilowdaa gurigaaga marka sheekha aada u faahfaahiyey mar rabi inaan ku dheeraado guriga markuu diyaarsan yahay oo balaayadaas hadda aan sheegay iyo kuwo kaloo badan aad ka ilaalisaan idinka gabdhaha ah ayuu hagaagi laakiin haddii nimankii laydinku diro ninka aad isu taagtid yaa 24 saac qajajac iyo dagaal iyo wareer sirna waan idiin sheegi si khaldan ha u isticmaalina raggaan aad arkaysaan ee xoogga waaweyn ee maskaxda weyn ee caqliga badan dhibaatooyinka ka dhaca adduunka kulli way u adkaysan karaan way u dhabar adeegi karaan marka laga reebo mushkiladda guriga annaga waa isu sheegnay marka hadda inta orodid ninka waa ka adkaa inta dhahdid miskiinka ha cadibin ninka gaajo u adkaysan karaa stress kale iyo dhibaato iyo ganacsigiisa inuu halaa u adkaysan karaa laakiin annaga moogtahay yacni meelahaasaan ka dhownahay gabadha hadday isku soo buuqaan xaaskiisa guriga oo ay qurac soo siin weyso ama quracda ay ka halayso marar badan quracda waa siisaanay laakiin quracun ilaahay xaalkeeda ogyahay la soo siini waa dareemi karnaa annaga wuu rafaasan yahayba akhi ma xanuunsan tahay maya maxaa kugu dhacay wallaahi akhi waa iska xaaladda dunyo deen maa lagaa rabaa maya ganacsigii maa si noqday maya lacag maa lagaa dhacay maya waxaasoo dhan islaantii balaayada ahayd ee gurigii joogto yaa ninkii islaamka soo bahdishay wuuba rafaasan yahayba ilaahay ka cabsada marka ninkaas waxna ma hagaajin karo adduunya ma xaqiijin karo aakhirana kaba daran salaada xataa waa gelab marka idinka doorkaas oo dhan ha leedihiin waa bulshadii oo dhan waay saa idiin sheegay
waxaad u baahan tihiin marka si aad doorkii laydinka rabay sida ugu wanaagsan aad ugu xaqiijisaan koow idinka horta inaad isdhistaan markaan leeyahay kuwii inkaarta qabaysay ka wadaan maaha gabadha waxaa leeyahay isdhis soon isu dhisi waxaa isu dhisaysaa jir ahaan aad isu dhisaysaa jiimka aad jiimkii dee ina aadid ninkaaga inuu kuu oggolaado soo maaha waad ka dhaadhiciso hadduu kuu diido aad aaddo oo barakaa kugu dhacday xaaladaada waa adag tahay dhaqaale ahaan isu dhis oo marka ay ka wadaan isku filnaasho gaar ninka muxuu kuu sheegi xataa wax kale iska dhaafay walciyaadu billaah sheekha moogtay arrintaas aniga igu soo aadiyey haddii adigaa ku fara dhudhuuban uu leeyahay isaga xataa u yaqaanaa inuu ka xishoonaya laga yaabaa sariirta oo xaqiisa xuquuqda ugu waaweyn ah iyay u diidaysaaba mararka qaar waxaa lagu akhrinayaa adoo u baahan iska celi oo maxay tahay waxaas waa fasaad adiga horta addoomay maa tahay naag addoon ah maa tahay oo mar walba loo baahdo la heli kara ay dhahayaan taas kama wadi marka aniga waxaa isu diyaarinaysaa bulshadan iyo acbaadeeda inaad qaaddo koow horta waxaad noqonaysaa waxaad iska dhisaysaa jaanibka iimaaniga ah jaanibka ruuxiga ah cibaadada ilaahay say isku tigiin ileen waxaa la rabaa mujtamacan inaad ku islaaxiso ood ku wanaajiso doorkaaga aad ka soo baxdo rabbi subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa inaad isku xirto marka adigaba haddaad calaaqadaada taada iyo midda ilaahaysan fiicneen waxaad hagaajin karta ma laha walidaalika aayadaha marka akhrisaan ragga iyo dumarku cibaadada way ka saman yihiin soo maaha way ka saman yihin man camila saalixan min dakarin aw unthaa sax labadaba addoon ilaahay waxay u yihiin addoomay u yihiin cibaadada wixii laga helaayo oo dheef ah way ka saman yihiin cibaadadii haddii gabadhu ay samayn weyso waxay la mid tahay ninka liyucadib allaahu almunaafiqiina walmunaafiqaat maxay ahayd aayaddii suurat alaxzaab ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات محقوق ختمي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقبلها أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مرككو عبادة الله سبحانه وتعالى أرنك ومهم قبل بدنا حتى ملتزمات عبادة ضعيفة يكويه حتى واجباتك ومثلا مركي عادة إسكدقيسو ama laga yaabo caadada ay u soo socoto 3-2 salaad inay dhaafto salaadaha horta ku ibtilaysan tihiinoo waa la daahini aniga ma aqaan waxaad ka heshaan duhra la joogaa مثلا wayna ogtahay calaamaday ku ogtahay caadadii ku dhici rabto salaada iyadoo tukaninba oo waqtigeedana uu soo galay ogow waa caadadii ku dhacday ma tukanaysa salaadaas waa laga rabaa waqtigeedu uu soo galay ama waxa laga yaabaa markay isdaahirinayso dhiigii waa ka go'ay مثلا inay isdaahiriso ay tukataa la rabaa Soomaa oo iska sugi oo iska soconi 2-3 salaada laga yaabaa saas inay ku dhaafto waxa kada lama rabo nabiga kaleey salaam si khaas ah oo khaas ah jacayl yahay ayuu idin kula dardaarmay mar uu shiriyay mar uu khassisay ayaga hadalka wuxuu ku yiri tasaddaqna وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار صدقة بديع واستغفارتنا بديع نارتنا أبدنت هنا أركيه مركو عيدين جعليها نارتنا أبدناتا مرة والنبي عليه الصلاة والسلام عبادي واجب كمان تي سنة حتى إنها تبدي سهل قاربا مرك قبلي إذن كهري إيوان وناكسنا ساسا يهايا معلم المها كمل الحديث عند الشيخين نبي قال أسوق قال عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم قبر أيال الجهوكت فركازوا حولي من هذه نبي وحكي عليه الصلاة والسلام عائشة وحي كتري امرأة لا تنام تصلي وين إذن ما بس حتى بها بينك عاورن صلاة أسوق جوكتا أسوق جدا أنا كان عاورن هبينك ورن محاو أسوق جدا سوشيال ميديا سما يشوكانسي يا تيك توك والعياذ بالله حتى كوا لقوا أنا دعوتي إنه ينسوقارت بعدين دويتو waxaan garteeda ku jiray gabar la qabo
ولح عنق دشي مسيغا حاجة برنامج كوسو داهي أفر ساعة أما توقع بينمو إمادة تليفون إلى هالليس أما تليفون يكون هالليس وحا سحمي هورت ما دي جوابتان كواس بس ما بلا قوة كواس ومساكين إلهي ننفي عن حديثها الآمين لها آمين ما هذان وقربتان الليل لما في عن إلهي دين سهله كوان كلا والله قوي جوابا هبين أفر ساعة هبين نمو قبر حاسة والله قوي لينك هذا وسوق اللي يقولي تلفون يكون دلدلنتو حق مية إلهي كعب سده والله حق معها سنة بحق معها حتى لغن كسر مالي حق معها إسكابر داكي شرعي نينك مسكين وهاي نيجو كلامه هنا عبار ملاها سو مرمري مركو أركينا يسن تلفون كده ما يسنين ولي وحيلها الله يسنين يعني حمان معها يعني واحد دون شركات كعادية وروح صح معها نهاية وكسوق أي تلفون كان مدة كلنا الله يسانين كم وقت يويرا مسير بس كم مساكين لكن حيقول جوابت ما تقانا سجال ساعة بين ما حتى والله الله يدارو نيجا سد إسلام دا سدو فرو دين بيقول مدول قاتا دي دون تاري واحد ما لو دول قاتا كرا واحد زعماها واحد زعماها إلهي كعب سنة مركب حانو لجي ذا عبادة ذا وإن لو سجده صلاة الليل يدعو يقرآن أخرس إلى آخره نبي عليه الصلاة والسلام قبله وتربية ساسة هنجرين أمنا زينب رضي الله عنها حديث أنس عند البخاري قولي هذا وحيكون حرنجرتي حرك لبتير وحرك ودحيه نبي يقول قولي وسوق لي وحو أركي حركي أو ماشكو حرن وحوي كان وحلا يروى حرك أي لا هي زينب رضي الله عنها مركي داشو أي حركي عسكنا إساء سيداس أي عبادة إلهي وسمين إساء نبي ودي عليه السلام وحوي لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد انت النشاط كالذي انتو كذا هذا داشان اسكدافه فيري وزينب رضي الله عنها جنة أي دربت زينب سو مرتان ذيك سو مرتان عبادة إلهي مركز وجود دالة عبادة إلهي مركز وجود داشان أو ذيك أدي سنتان إيمانهان يروحهان عبادهان أيات عروتينا يقويسكينا ينينكينا يبلشدينا ما كتربيين كرتان دور كي شيخ أو شيخ مركز كسر بحي كرتان حديث النبي كسر وحكم عليه الصلاة والسلام وإذن كوجد دعي إلهي هون حريستو ده آمين ده إلهي دين حريسته جبر هبينك كعلي أو تكتي نينك دينا كعسي سوتو كذا هديه كعوايانا بيكو سير وساكو كعس بحر يسقيلنا لمنكين لا دقن كودين كايقان نينك هديه بلايا هجري هي حراق دوي هي نبي قايري عليه السلام بيها لوش من تدهدي بحر يسقيلن أبو نسسب سكال قاوب بدنا جرو أدث بعسى ولا يقانا وعن قوتها عبادة هذه قليل يقولون وما هن مركي هذه لكن أسكو تربيس أيات كسر بحي كرتا دور كيها ذات كله نينكاغا عرورتا هذا قويس كاغا درس كاغا إنها كو تربيس وحكم إذا ونقب حياة ومهمة دور كإصلاح بلشدة ويفسادي هذا وحبذنا أغنى النجا سوشيال ميديا فسادية قبلها أروس يدا فسادية كل مدى أو أروس كلية ما هن حفلات كلا قبلها يا فسادية قبلها عدي للربعين إصلاحيان وإذنك النجا هذا هولل وقبلها يكون جيران وأروس وأدوكتهن سيدا يكون آذيان ما آذي كالرسامة أذنك لكن وآذي كرتان هذا حجاب كاغا قبو هل إلا بي يسدح انت الله هذا الشيء ودعو ولو بهيه وأنا قلت إن دفهنتان دعوة يا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن يقوني كنت هاي رقع والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات شيخ الإرادة الإمام ابن نحاس وحليه وإجماع إنه واجب كويها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دمرك سيدا واجب ويا هاي رقع وحلو شرط كلية أود وجدت الاستطاعة مرك هذا أوده
weliba waad awoodaane ilaahayna subxaana wa tacaala uu idiin fudaydiyey haddana waxaad ogaataan gabadha haddii ay fikir ku qanacdo arrin ay aaminto way kaga daran tahay nimanka idinka haddaad wax aamintaan fikir uu idinka dhaadhaco aad ku qanacdaan waad u dagaalamaysaan waad u dadaalaysaan xataa waad u dhimanaysaan ma ogtihiin awooddaas ilaaha idin siiyey ninka waxaa laga yaabaa masaalix iyo nifaaq iyo mujaamalo iyo asagoo wixii aaminsan haddana inuusan aad ugu dhiiranin waxyaaba badan uu xeerinaya dumarka saas maaha hadday aaminto way aaminta walidaalika dacwada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo islaaxa bulshada idinkana waa laydinka rabaa waxaa ka horraysa laakiin altasalluxu bilcilmi sharci idinka inaad diyaarisaan diinta barashadeeda cibaadada ilaahay adoo qof muslimad ah oo ilaahay uu raalli ka yahay meelahaas markaad tagtid aadan ka cabsan inaad fitnowdid waad samayn kartaa bulshada dumarka marka waxaad u dhexgeli kartaan haddii aad diyaarsan tihiin si ay raggu aysan u dhexgeli karin culimmada waaweyn iyo ducaadda iyo mar walba fursad uma helaan inay dumarkii dhex galaan oo ay wacdiyaan oo ay wanaagga faraan xumahana ay ka reebaan inta badanna saan idiin sheegay mujtamacaadka gabdhaha fasaad ahaan marka la dhaho iyo dunuubta meeshaasay ku badan tahay gabdhuhuna si aysan u dhagaysanin ragga ayay gabdhaha u dhagaystaan idinku waa isfahmaysaa moogta caqliyadeedaad fahmaysaa qaabkay u fikirayso madaakhisha iyo meelaha laga soo galaa taqaanaa mar waad sasabani mar waad canaanani ilaa akhirihi soo saas maaha marka waxaan aad leedihiin dumarka maan la wacdiyo idinka laftiinna wacdiya waxaa ilaahay lagu mahdiyaa hadday gabdho sujiya meesha ku jiraanna gabdhaha sujiyiga ayaa kaga fiican gabdhaheena kale kuwaan hadda iskuulleyda iskoolaadka akhristay oo sekulaga ku badan khayr allaha siiyo dacwo waxay wadaan aada u xooggan annaga waa ognahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr fara badan ha siiyo adinka laftiinna soo gabdhihii ixsaan xataa waxaa ku jirto alustaada xaliima soo maaha mid sahro waay programka ya sahro waay soo maaha jazaa allah khayr nashaad badan ay wadaan gabdhahaas gabdho kaloo badanna waa ognahay annaga oo khayr badan hadda maamdhowito waxaan u malaynayaa berri dambe miya inay qabsanayaan markasu tiijaan 200 oo gabdhood oo qur-aanka xifdisan oo hal fadhi qur-aanka oo dhan looga dhageysanayo ma maqashay gabdhaha wada waxaas hal nin kuma jiro marka dadaalkaad wadaan waa badan yahay waxaan kaloo aqaanaa soosii ku aqaanaa iyo halingaam maamooyin waaweyn xataa gabdho yar maaha oo samaystay waxay samaysteen fadhi iyo golay samaysteen nidaam ay u samaysteen waxay iska aruuriyaan lacagta markay iska aruuriyaan bil kasta xaafadaha ma aragta isku raranka iyay aadaan Kariobangi, Dandora, Kayole, Kwanjenga, Kawangware, Huruma meelahaas ay aadaan waxay beegsadaan gabdho keliya way u tagaan waxoogaa ayay siiyaan hadday dhar noqoto hadday cunto noqoto hadday lacag noqoto kadib waxaa loo soo jiidayaa dacwadii waxaa laga inay muslimo tahay laakiin ay wax badan diintii aysan kaga dhaqmayn kuwo kaloo waxaa aqaanaa waxay ku howlan yihiin gabdhaha in wax la baro bes iyo maamooyinka macallimiin ay mishaar siiyaan rag ah ilaa hadda waxay maraayeen markii ugu dambeysay 12 macallin oo mid walba la siinayo 50,000 60,000 marka idinka waa sameyn kartaan ya soo sameyn kartaan lacagtii isku dardaraya shaqada waya tii islaama oo taqaanid ayuu tab Soomaali kale hagbad Soomaali boona fiican hagbad sheekha mufti xaq waaye anaga ayuuta dhahnay ayuutada midaan una dahabka u gadanaysan ka daaya dahabka jannada ka fiican ayuuto dacwo ah sameeysta kii dahabka ma aragtay 30% مثلا ayuuto 10,000 isku darsataan tobankii kun 3,000 oo kamid ah waxaad u qoondeysaan dacwada soo ma sameyn kartaan والله وسمين كتان دكسي كفرة تحفيظ كفرة مدرسة كفرة محاضرة سانو كليتا هو لو كرينا لو قمرا كفرة قبله حاجة مساكين أو سو إسلامي أو حتى أهل سنين حجابكي شرعي وحي هو يبسنايان ما تقانا قبلها سادين شيء سجوده ويكشقيان وحي وروريان حجابكي إنه حاليا إسكتور تاني دينك
meel ay ku ururiyaan way hagaajiyaan haddii uu jaxjaxan yahay waa la hagaajin waxaa loo geynayaa gabdhahaas war waxaad qaban kartaan dacwada iyo islaaxa mujtamaca marka la dhaho yacni kumanaan shay ayaad qaban kartaan noodistan mandheer waxaan kusoo aragnay gabdho la yidhaahdo mashruuc waxaa la dhahaa mashruucu tacdiimu kitaabillah kitaabka ilaah in la weyneeyo waxay ula jeedaan mataqaanaa masaaxifta duugga ah ayay qaadaan wixii la hagaajin karo waa la hagaajin wixii kalena waa la gubi waa la asturi soo camal weyn maaha waa samayn kartaa marka ilaahay ka cabsada hadda marka sheekha markuu yimaado aad fadooda ka dhamaysataan ha dareerinee gadaal ama meeshiina jooga tashta war waxaasoo qiimiyaa nala siiyey waxaasoo sharafaan leenahay waxaasoo nicmaan leenahay muxaadarada hadda sheekha ugu dambeysay sheekh cabdiraxmaan khudbadiisa sigiisa uu ka jeediyey cinwaankeeda waxaa maada qadamta lidiin illah war diintaan ilaahay nicmadan ilaahay ku siiyey khayrkan faraha badan adiga maxaad ka geysatay xataa shaqaalihiina gabdhaha idiin sheegay guryaha joogo soo islaam ma dhahan sooxili haddaadan aqoonin weewey islaamku haddaad dhahad way fahmi wayna u nugul yihiin qofkaa hooseeya waay mogta 1,000 shilin 2,000 3,000 haddaad siiso ay soo islaami wax yar ma aha qaara waxay ku leeyihiin berina way gaaloobi maxaa kaa gala adiga waxaas ha soo islaamto horta hadda dhamiso wanaagga iyo khayrka marka walaalayaal waa idinku dheerayska raalli ahaada waxaasna sheekhu ugu dhalaaliyey iyo si xun uu noo galay iyo maaha wallaahi bilaahi tallaahi jecel idin jecelahay waay khayrka idinla rabaa wanaagga idinla rabaa idinkana ilaahi subxaana wa tacaala quduraad badan iyo awood badan ayuu idin siiyey awooddaas marka kulligeeda maba ahane qayb ka mid ah inaad ummaddiina uga faa'iidaysaan bulshadiina uga faa'iidaysaan ragga culimada iyo ducaadda iyo muslixiinta aad garab u noqotaan xataa afkaar aad keentaan cusub sida lagu hagaajinaayo ummadda khaasatan dumarka fasaadka hadda jiro see looga hortagi ya see khayrka loogu waanini yacni mujtamaca yacni khaasatan xataa gabdhaha multasimaadka ma aragtay idinkoo fiicantiin haddee xijaabkii xataa ma aragtay kii fiicnaa ee la yaqaano oo sharciga ahaa wuu yaraaday aniga markaan arko gabar xijaaban si fiican u xijaaban oo qab ah oo u duceeya waa iska farxi wallahi waxa lagu farxo soo maaha laakiin gabdhaha beriyahan waa halaabeenba xijaabkii xataa waxay ka dhigeen maslaxo nin wadaada qabo ninkii ha furaayo xijaabkii waa iska tuuraysaa bana hawto adiga maxaa ku dhacay aan iska leersade dhaaf ay dhihi war maxaad leersani janna ay ku sugaysa iyo naari walciyaadu billaah ama waxaa laga yaabaa meel madrasa inay ka shaqayso ama ay ku xiran tahay bulsho khayr oo idinkoo kaleetay ku jirta marka maadaama gabadhaan iyo tan iyo xijaabkooda u fiican yahay waa isku xishooni intay ka guurtay meel kale ay degtay oo xijaabba laga aqoonin ama xijaabku khimaar yaroo xataa wallahi wararka qaar sheekh cabdiraxmaan khamiiskaygaa ku jida adigo iska qoslaysaaya khamiiskaygaana ka waasicsan ciil aagu qabani lama rabo waxaas ha maxaa sheekh maalin way taxta midaa fatwa idin siisaa maqle maxaa sheekh adiga in jirka la asturon baa muhiim eh jirka haddii uu qamiisku kugu dhegan yahay baalkaan aa qabtaa magaciisa khimaarka ma ahane ka hoose cabaayadda xijaab way lama dhihi karo calaa kulli xaal khayr allah idin siiyo dictoorku uu soo noqday allah barakeeyo sheekha soo galaayo waa idinku dheeray raalli ahaada waa laydin jecel yahay waa laydin maamusay maamuuskaas waa nimco su-aalaa ka dambayso su-aashaas jawaab u diyaarsada oo ka qayb qaata bulshadiinna iyo ummaddiinna horumarinteeda diimeed si aad u heshaan ama aan u wada helno markaad hagaagtaan oo hagaajisaan sacaadada aakhire iyo adduunka nasal allah subxaanahu wa tacaala an yuwaffiqana lima yuxibu wayardaa wajazaakum allahu khayran wasala allah calaa nabiyina muxamed شكرا جزاك الله خيرا إلهي بارك اليوم الشيخ حمود مركوني يا شيخ عبد الرحمن إلهي دم بركيه موضوع وناكسن أي نوسو جديد إلهي وحن كبرنا ميسان كذا حسنات كله وحن أقول بدون إن شاء الله تعالى الشيخ محمود بسوق لي الشبلة يو فتاوى دي بانكو سو خاتم دونا دورة ما أنت أنسو قبل إنه كاليفورنيا جروب سكولز إداريين جارهان معهد البشائر إن شاء الله تعالى تاني واتيكوات ويجري دونتا
oo waxay socon doontaa insha allahu tacaala marar badan baan soo laaban doonaa insha allahu tacaala